kulan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada halkan waxaan ku qabanaynaa wareysi gaar ah oo aan uga hadlayno maaliyadda ama dhaqaalaha galmudug aan uga hadlayno wareysigan gaarka waxaa ku marti qaadnay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda galmudug maxamed axmed faarax oo aan ka wareysan doono arrimaha maaliyadda iyadoo dhowaan baarlamaanka galmudug ay ansixiyeen miisaaniyadda galmudug ay ku shaqey doonto 6 bilood ee soo socota haddana ay diyaarinayso 2018 maaliyadda galmudug wasaaraddu ay diyaarinayso arrimahaas aan ka wareysan doonaa iyo guud ahaanba dhaqaalaha galmudug wasiir kusoo dhawaa wareysigan gaarka aad iyo aad u dhawahay diyaarna oo runtii inaan kala qayb qaadno barnaamijkan waxaan filaynaa runtii inuu fursad noo yahay nafteena aan dadkeenana kula hadli karno aan ku gaarsiin karno runtii waxyaalaha inay tahay kala qayb qaataan dowladda gobolka galmudug su-aasha koowaad waxaan ka bilaabaynaa dhowr maalmood ka horba waxaa baarlamaanka ay ansixiyeen miisaaniyadda galmudug ay ku shaqey doonto 6 bilood nagu safool leh ay wasaaraddu u gudbisay waliba ay marka hore ay soo marsiisay golaha xukuumadda oo muddo awdeen bal miisaaniyaddaas la ansixiyey cadadkeeda dadka horta la wadaag marka koowaad runtii miisaaniyadda waqti kala duwan ayay soo martay miisaaniyadda horaan soo diyaarinay hadda tan waxay ahayd tii 2017 waxaa la soo diray 2017 saa la socotaan 2016 aakhirkeeda la soo diyaariyay laakiin hadda mid aan miisaaniyadda aan horgeynay golaha baarlamaanka waa dib u eegista miisaaniyadda oo 6 bil markii la joogaba in dib u eegis lagu sameeyo si loo ogaado tii hore wixii ka saxmay iyo wixii ka qaldamay saas darteed marka bishii July ayaan diyaarinay haddana ugu dambeyntii xukuumadda marina ugu dambeyntiina waxaan soo gaarsiinay in golaha baarlamaanka ay maalmariyaan runtii marka diyaarinteedana waqti badan ayaan ka soo marnay wasaaradaha kala duwan iyo hay'adaha kala duwan dawladdan la wadaagnay xukuumaddana sidaas ku soo gaartay ugu dambeyntiina baarlamaanka ayaa ansixiyeen miisaaniyadda ugu dambeysay baarlamaanka ansixiyeenna waa 5.1 milyan waaye runtii marka waa miisaaniyad runtii aan dhihi karno si aad ayaan u soo yareynaa annagoo ka fikirayna howlaha horyaalla kuwa ugu muhiimsan dawladda miisaaniyaddaas la ansixiyey saa sheegtaba waa yar tahay galmudugna waxaan la soconaa inaysan ilo dhaqaale inaysan lahayn xaggee miisaaniyaddaas ay ka soo gelaysaa galmudug oo aad u sheegi kartaa shacabka ama dadka ku daawanaya aad u sheegi kartaa runtii miisaaniyad marka la samaynayo waxay ka kooban tahay dakhli qiyaas dakhli iyo qiyaas kharash ay ka mid tahay ay iskaga timaadaan runtii waanu samaynay markan qiyaasta dakhliga galmudug heli karna aan helno baan waxaanu samaynay inaan kharashkeediina ku saleyno runtii galmudug meesha ay ka leedahay ila dakhli male way leedahay laakiin kuwa abuurana way jiraan kuwa hadda ka bacdina abuurna aan rabnana way jiraan runtii meelahan ku talagalina waxaa kamid ah canshuuraha wadooyinka ka soo gala kale waxaa kamid ah canshuuraha qaadka oo kala kamid ah waxaa kamid ah runtii adii canshuuraha kala duwan runtii waxaa jiraya qaybo kale kamid ah oo aan ka heli doono dawladda federaalka oo kale sabood aan ugu helin runtii waxaa jiray kala qaybo kale oo ayaga aan ka helin donoriska sida mashruuca RCF2 lagu kabo shaqaalaha dawladda lagu kabo marka meelo kala duwan ay ka imaanaysaa runtii laakiin markii la ururiyo 86% waxaan doonaynaa miisaaniyaddan in ka timaado gudaha galmudug meesha 14 kalena aan danaynayno in nooga timaado mashaariicda kala duwan ee lagu sabood kareenay galmudug galmudug labada sano soo socota maxaad isleedahay kobceeda dhaqaale mid caankee ah uu noqonayaa isleedahay ma kor u kici doona qiyaasta ama rajada aad qabtaan maxay tahay runtii anaga 2015 bishii 8 ayaa golaha wasiirada galmudug la dhisay aniga aan kamid ahay wasaaradda maaliyadda wasiirka xogka ahay waxaan ka soo bilownay meel zero ah eber ayaan ka soo bilownay haddana waxaan marsiinaynaa meesha adiga naftaada arkayso wasaaradii inay wasiiradii shaqeynayaan inay shaqaalo ku filan ay leedahay u shaqeynaayo shaqaalo aqoon ay qaadato in laga fikirayo maanta sidii loo soo harmari lahay galmudug oo dhan marka intaas 2 sano ee barka wixii noo hirgalay wax aad u wanaagsan runtii ah haddana waxaan filaynaa maadaama baalkii yiraahdo dadkii dawladnimada sii baranayaan baalkii yiraahdo fursado badan oo kale ay jiraan oo nafteeda isbedelo kale imaadeen waxaan rajaynaynaa intii in ka badan inay noo soo qabsoomi doonaan horena uga sii socon doonaan meeshii aan ka sii wadin waa tahay waxa jirta inuu waxa diyaarinaysiin dhawaan seminar aad qabateen oo u qabateen agaasimayaasha wasaaradaha kale miisaaniyadda 2018
bal taas faahfaahinaysa miisaaniyadda runtii waa markii afaraad oo aan diyaarinayno 2015 bilood ugu dambeeyay 2016 oo dhameystiran iyo 2017 saddexaas ayaan diyaarin haddana waxaan diyaarinteeda ku guda jirnaa 2018 miisaaniyadda runtii markii la diyaarinayo waa inaa xog kugu filan aad haysato xillidaas siyaabo ka hooseysa sida hadda aan u diyaarinayno ayaan u diyaari jirnay hadda laakiin waxaan la wadaagaynaa dhammaan hay'adaha dawladda kala duwan wasaaradaha haday noqon lahayn haday baarlamaanka noqon lahayn haday gudiyada madax banaanayn cid kasta oo kamid ayaan la wadaagnay agaasimayaashooda ayaan isku keenay ayagaas ayaa waxay ka qayb qaadanayaan diyaarinta miisaaniyadda waxaa jira tababaro aan siinay agaasimayaashaas oo sidii uga qayb qaadan lahayn diyaarinta miisaaniyadda aan la wadaagnay wayna ku guda jiraan waxaan filaynaa insha Allah inay ka soo baxdo miisaaniyad maangal ah oo wixii la qiyaasay ay dhabta ku imaan karaan marka aad iyo aad aan ugu rajaynahay arintaas xafiisyada wasaaradda dhismayaasha wasaaraddu ay degan tahay hadda wasaaraddu intee degmo ay xafiisyo ku leedahay oo galmudug ah oo ay ku shaqeysaa xafiisyada wasaaradda waxaan isleeyahay dawladda meel kasta ay ka shaqeyso wasaaradda maaliyadda xafiis ay ku leedahay haddii ahaa lahayd cadaado haddii ahaa lahayd gaalkacyo haddii ahaa lahayd degmooyin kale kala duwan sida caawdaaq balanballe xeraale iyo hobyo all meeshii dawladdu ka shaqeysa dhammaan xafiisyo ayaan ku leenahay laakiin way kala hormarsan yihiin xafiisyadaas kuwa sidii loogu talagalay u shaqeynaya iyo kuwa weli gaab uu ku jiro aan danaynayno inaan sii gaarsiino shaqadooda sii horumarino marka waxaan dhihi karnaa dhammaan galmudug intay access u lahayd inay ka howlgasho wasaaradda maaliyadda xafiisyada dhammaantood way ka jiraan wayna ka shaqeynayaan waa tahay kuwa dhiman inaan gaari doonaan rajaynayna degmooyinka noo dhimano xoreynta iyo wax suban waa tahay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxaan ognahay inay u baahan tahay shaqaale khibrad iyo aqoonba u leh arrimaha wasaaradda waana wasaaradda muhiim ah markii loo eego wasaaradaha kale shaqaalaha wasaaradda ka waran shaqaale ku filan horta wasaaradda ma haysataa mase ku xulataan aqoontooda iyo hawsha siday wax u qaban karaan ku xulataan oo itixaam ma marsiisaan runtii dee annaga shaqadana laga rabaaba waxay u baahan tahay aqoon ayay u baahan tahay marka annaga ayaa ku qasban inaan ku qaadano shaqaalaha aqoon sida aad la wada socoteen ama saxaafadda aan hore loo wadaagnay shaqaalaha noo shaqeynaya dhammaan waxaan ku qaadanay si furan website ayaan ku xayeysiinay dad aqoon u lahaa soo xushtay soo codsaday ayaga ayaan ka xulanay dadka aan qaadanay hadda kuwa noo dhiman waxaad ogsoon tihiin in berihii ugu dambeysay website qaarkood shaqaale aan u baahannahay aan ku soo xayeysiinay ayagana si lagu shaqaaleysiinaya dhammaan shaqaalaha aan qaadanay guddiga shaqaalaha rayidka ayaa soo shaqaaleysiiyey oo galmudug sida ayaana ku qaadanay kriteeriyadii wixii looga baahnaayo dhan way fuliyeen si aan u gaarno marka hamiga iyo waxyaalahan higsanayno waxaan ku qasbannahay in aan qaadano shaqaalo hawsha loo baahan yahay ka bixi kara marka taas xaggeeda anaga dhalin looma iman karto aad iyo aad mahadsan tahay wasiir intaasaan waxaan rabaa anoo fursadda ka faa'iideysanaya runtii galmudug waa maamul curdana waa maamul shaqooyin badan looga baahan yahay inuu amniga hagaajiyo inuu dib u heshiin sameeyo inuu maamulka uu baahiyo deegaanada dhammaan galmudug inuu dib u xareyn ku sameeyo deegaanada ay ka haystaan cadow si loo gaaro taas oo dhan waxay u baahan tahay in la helo dhaqaalaha dadka inay isku tashtaan ayaa wanaagsan runtii waxaan dadka deegaanada galmudug iyo dadka galmudug daneeya intaba aan ugu baaqayaa inay maamulkooda wax ku beelaan waxna ay ku bixiyaan haddii qof kasta oo kamid ah uu ku deeqo waxa ugu yar lacago ay tahay waxay ka qayb qaadan kartaa in maamulkaas hagaago runtii waxaan u haynaa annaga maamul hufan oo xisaab celintiisa iyo isla xisaabtankiisa dhammaan uu saxan yahay haddii ahaa lahayd marka jaaliyadaha galmudug haddii ahaa lahayd dadweynaha reer galmudug haddii ganacsatada ahaa lahayd haddii cid kasta ay ku waajibeen khidmadaha canshuuraha ay ahaa lahayd dhammaanteed waxaan ugu baaqaynaa inay galmudug saacidaadeeda ay ka qayb qaataan waxna ay ku baxsaan si ay u soo baxdo maamul dawliya oo shaqadii loogu baahnaana qaban kara uu soo baxo runtii ayagana ay ku ammaanaan lahayn xilligeeda inay dadkii maamulkaas ka shaqaysiyay ay noqon lahaayeen marka waana ku rajo weynahay inta hadda socotana dadka ayaa qabsaday galmudug inta dambana in dhammaystiray ayaan waan rajay doonaa insha allah waxaa jiri doona kulamo kale oon bulshada ku wacyigeli doono fariimo aan ugu talagalnay inay uga qayb qaataan horumarinta galmudug ama dhaqaalaha galmudugna
aan kugu soo gudbi doonaa aad iyo aad ugu mahadcelinaya telefishinka qaranka waa mahadsantihin salaamullahi calayk gaar ahaan wariyaha awowana si gaar ah telefishinka qaranka waa mahadsantihin salaamullahi calayk aad iyo aad wariyaha awowana si gaar ah ugu mahadcelin salaamullahi calayk aad iyo aad mahadsan tahay saacatul wasiir daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkii gaarka ahaa oo aan ku marti qaadnay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda galmudug maxamed axmed faarax oo aan ka wareysanaynay arrimaha dhaqaalaha galmudug wasiir aad iyo aad mahadsan tahay